والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال إن شاء الله تعالى ومؤتمر كنيكو بيوتوبناد أو قبن قابيو حلي كستادا يوكله مسجد كتوفيق مقالة وصل دلك النروي ومالك أفراد يا محاضرة دي كوباد إن شاء الله تعالى محاضرة دني ومحاضرة هريوسو سعوتي كان ورميسي تاريخ دي تتاركه حينوسو دياري الشيخ الشيخ مصطفى حاج إسماعيل إن شاء الله تعالى الشيخ يا إنه قاعد عليك دونه فليتفضل مشكورا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد فالسلام عليكم ورحمته وبركاته. waxaynu hore u soo akhrinay ciddii joogtay iyo ciddii dhegaysatayba 6 muxaadaro oo ku saabsan sidii tataarku ay u baabi'iyeen dhulkii muslimiintu ka talin jireen iyo 3 dowladood oo waaweyn oo dowladihii muslimiinta ka mid ahaa. muxaadaradii 7aadna waxaynu kaga warrannay dowladdii ugu dambaysay afraad ee dagaal la geli doonta iyo wadcigeedii siyaasiga ah iyo qaabkay u dhalatay ama qaabkay u jirtay oo ah dowlat almamaalik. maanta 2 muxaadaro kale ayaan waxaan kaga warrami doonaa markaa qaabkii loo celiyey ama se loo jebiyey dagaalyahanadii tataarka iyo weliba qaabkii markii dambe dowladihii tataarku ay u islaameen. waa 2 طariiq oo culamo muslimiin oo kala gedisani martay. qolana طariiqu dacwa bay u martay oo dowladihii sidooda u jira islaamnimo u bedeleen. qolana طariiq aljihaad bay u martay oo tataarka horu socodkiisii iyo wixiisii bay joojiyeen. labada qadiyadood baan rabaa inaan soo bandhigo. ta koowaad marka oo dariskani uu ku saabsanaan doono waa dagaalkii loo yaqaanay caynu jaaluut. caynu jaaluut waa magaalo ama waa meel goob uu ka dhacay dagaalka kani. waxaynu soo tilmaamnay masar iyo idiraabaadkii siyaasigee ka jiray iyo duwal almamaalik ama mamaaligta dowladdoodii markay samaysantay iyo wixii dhab ka soo dhacay ee bilowga ahaa. waxaynu soo marray sanad gudihii iyadoo uu dhintay boqorkii hore najmuddiin ayuubiga ahaa, la dilay inankiisii towranshaah, la dilay ciisaddiin aybek oo madaxweynihii ku xigayah, la dilay shajaratu dur oo gabadhiiyana madaxweynaha noqotayah. waxaynu soo gaadhnay iyadoo uu maamulka gacanta ku hayo nin la yidhaahdo qitus ama qutus la yidhaahdo maxmuud ibnu manduud. qutusna lagu naanayso ama loo yaqaano. masar wakhtiga kan markaa masraxeeda daakhligii saas u ekaa oo hawraad tiro badan ayaa dhexdeeda ka socday. dhan kale markaad ka eegto waxaynu soo marray iyadoo ciidankeedii maadaama inqilaabba uu isku dhigay uu gudihiisa iska dilay oo ciidanka qaybihii aan odhan karno way ugu xoog badnaayeen ay baxsadeen. waa mamaalik albaxriya nimankii la odhan jiray najmuddiin uu sameeyey ay ka baxsadeen waddanka kadib markii la dilay guddoomiyahoodii ama hoggaamiyahoodii. jeyshi masr markaa ama ciidankii waddanka muslimiintii uu lahaa wuu daciifay maadaama uu dhexdiisa iska dilay oo mucaziyiintii iyo ay isu dileen mamaalik albaxriya. masraxa siyaasiga khaarijiga haddaynu eegno ama siyaasadda dadkii ku wareegsanaa
waxay ahayd masar cilaaqaadka ay la leedahay cidda dabadda ka xigta oo dhammi waa cilaaqaad colaadeed xaggan waqooyiga cidda rasmigee ka xigtay waa falastiin iyo lebnaan iyo meelaha imaaraadkii yaryaraa ee masiixiga tirada badnaa ee caka ay u xoog badnayd caka suur sayda bayruut trablos waxaasoo dhammi antakiya ilaa laga gaadhayo xeebtaa dhinaceeda waxaa ku taxanaa imaaraat saliibiya ama masiixiya ama nasaaro ah oo ah kuwii ay ku soo degayeen ama meelihii ay qabsadeenba markii ay yurubiyanku soo duuleen toddobadii duulimaadee hore ee kii u dambeeyey aynu ka warrannay ee ay masar ku soo duuleen dhanka kale markaynu eegno wakhtiga kan duwalkii ayuubiga ahaa ee ka jiray shaam laftoodu colaad bay u qaadeen nimankan mamaaligtae qabsaday waddanka kan oo waxaynu sheegnay dhowr goor inay ku soo duuleen markaa masar cidna lama heshiisa ha dowladda ka dhisani meesha intaa waxaa raacda dhibaato dhaqaale oo dunida waxaa la yaqaanaa meel kastoo dagaalladu ay ku bataan inay ku dhacdo maxay dhibaatooyinka dhaqaale inay abuurmaan markaa masar gudaheedana dhibaato dhaqaale oo daran baa iyana ka jirta su-aashayn markaa isweydiinaynaa waxa weeyaan masar waxaa duulimaad ku soo ah aqwa dawla fi lcaalam holaako oo lagu qiyaaso ciidamadu wato 400 kun oo askari inuu wato waxa ay ciidamada holaako hordhacoodu degan yihiin markaa magaalada ghaza falastiin xuduudan masar ilaa halkaasuu haystaa oo inta kale uu ka soo gudbay waxaynu u baahanay inaynu istusinno oo maarayno oo ah mawduc alcibra qisada oo dhan dhulkaynu uga soconnay ka mid ah siduu u maareeyey qutus xaaladda nooca kana gudihii oo ishaysta dabaddiiyo dowlaadkii ku dhadhowaa oo la wada cola ciidan aad u xoog badan oo dowlad weyn oo ajanabiya soo wado dhaqaalo burbur haya intaasoo ku kulansan ayuu qutus madaxnimada qabtay qutus wuxuu ku talagalay inuu jihaatamo oo wax iska dhiciyo laakiin jihaadku maaha frontkoo la tago uunoo qori la qaato wuxuu u baahan yahay siyaasa cadiima ka horraysa walidaalika waa deriska ugu muhiimsan meesha tane aan raba inaad si fiican u fahamtaan qutus khuطuwaat التagyiir waxay culammadu ku tilmaamaan buu sameeyey tallaabooyinkii isbeddelka kow siyaasaddiisii koowaad wuxuu ku bineeyey waddankan dadka deggan inuu midayn karo wailaa hadday kala tafaraaruqsan yihiin cadow iskama celin karaan sawaa koox jihaatamaysa ama ha joogta ama yay joogin waddankan muslimiinta ah ee masar ah haddii siyaasiyiinteeda iyo ciidamadeeda iyo dadkeedu ay ishayaan iyaga gudahoodu iyagu ay col yihiin oo isdilayaan oo aan soo sheegnay madaxdoodiina intaa laayeen inuu intaasoo ninoo madaxii inqilaab ku dhintay tawraan shaah ciizaddiin aybek maxaa la yidhaahdaa shajarati dur maxaa la yidhahdaa janankii ciidanka haystay faarisaddiin aqtaay waxaasoo nina wac iyo dumarba waxaynu sheegnay in dil ay muteen ninka waddanka caynkaasa xukunkiisa isagu markaasi wiilkii yaraa meesha ka inqilaabay oo qabsaday wuxuu ku tala jiraana inuu dagaal galo aqwa dawla fi lcaalamna inuu iska dhiciyo taasi waxay keensatay markaas inuu siyaasaadkiisoo dhan dib ugu noqdo awalan wuxuu ka bilaabay istiqraar ilwadci اdaakhili waddanka gudihiisa sidee siyaasaddiisa loo sugi karaa wuxuu isugu yeedhay waddanka umaradiisii iyo qaadadiisii caskariga ahayd iyo dadkiisii waayeelka ahaa iyo culammadiisii buu isugu yeedhay waa waddanka wixii madax ahaa ee telinayey ayuu shir isugu yeedhay dabeetana qiطs wuxuu kala hadlay qadiyadda tan wuxuu ku yidhi markuu soo ururiyey innii maa qasadtu
إلا أن نجتمع على قتال التتار waxaan idin sheegayaa buu leeyahay dadyowgiina kan madaxda iyo waayeelkaahi wiilkan aan meesha ka rixay inqilaabay ee aan qabsaday dan kale kama lihi ilaa iyo inaynu u midowno tataarka inaan iska dhicinno mooyaane waxaanan ogahay buu leeyahay dowladnimo inaan yaroo carruuri haystaa inaanay wax dhicin karaynin walidaalik haddaa ila midowdaan waynu ku midowno inaynu tataarka iska celinno waxaan ballan idiin qaadayaa sultadu inay halkaa iga taallo oo ciddii idinka aad doontaan maamulka u dhiibataan yacnii Qudus wuxuu leeyahay anigu ma ihin nin madaxnimo doonaya waxaan haysan nin raba inuu u taagan yahay inuu muslimiinta wax ka dhiciyo maadaama ay qadiyadu caynkaa tahay hadda waxaan u baahanay buu leeyahay inaynu dagaalkaa gallo maalintaynu guulaysannana cidday ummaddu u garataa oy madaxu noqoto أقيموا في السلطة من شئتم قطس قطايات كان علماء وحيلي المسلمين تاهي عدالة يثق أيا لغتهم إياه ما هين منافق مناورة سياسية إنه ضدك ورورية ونكون دقال قالوا كرسي وكل حجستنون يالا ما هين أسباب بدنو تاريخية علماء الشرحان درادد لكن وقت غير وكا قد بيه وحكى الله معروفة قيادة النبطة قائدك مرموق يلا يقانو هوغانك رسمي قاي وهوغانك حالاتك أزماتك ومدى ورورين كرا يعني وقتك نبتو شرتي أزماتك قفك مع الأزمة ومد هوغامين كرا ورورين كرا وقائد النبا نكاني رنتي صفات القيادة والنبا بوت مدحدي يا أمرادي يا علمادي يا ددكي ويالك وحكوله الشيء inuu meesha ka daadagayo ciddii la rabana loo doorto danta uu leeyahay tahay inuu tataar la dagaalamo wuxuu kaloo dib ugu noqday dowladdiisii wasaaradii iyo kuwii uu arkayay inaanay barnaamijkan xamili karin wuu casilay waxaa ka mid ah ibnu binti laaciz nin la odhan jiray oo ahaa wasiiradii shajaratu dur gabadhii la odhan jiray ku dhowaa wuxuu ku bedelay wasiir la yidhaahdo zaynadiin yacquub ibnu cabdirafiic wuxuu oggolaaday raggii mamaaliki albaxriya ay ishayeen nin ka mid ah inuu ciidamada u daayo aanu ka bedelin waa nin isagana la yidhaha farisidiin aqtaay assagiir alkabiir waa kii la dilay waa isku magac laakiin waa nin kale oo labaad ninkaana wuxuu u oggolaaday qiyaadadii ciidanka inuu hoggaamiyo بعض الرؤوس الفتن أما نمانكي مدحضة هي انقلابة وضوي قيبة كمدنا وحرق قضب لاباد بسمي أو دقال كانوا قد ديار قروبية قضب كاللبادة ودقال كانوا قد ديار قروبية وحويان العفو الحقيقي إنه إذا هذا أمده هيس السامح دو والرقص ديلي سياسات سكود ديلي مدح بدن كلا خارجيي دي بكلا قادي kala baxsaday oo ciidanka Masar ragga ugu khibradda badan leh ugu xoogga badan leh waxa kamid ahaa ciidankii uu sameeyay Najmuddin Ayyub al-Mamalik al-Bahriya la oran jiray ciidankaas janankii haystay waa kan la dilay Qutus wuxuu ka tirsayay koox kale oo mucizay kooxdii uu sameeyay Izzuddin Aybak ciidankaasi raggiisii ninkii ugu khibradda badnaa baan odhan karnaa ee wakhtigaa noolaa Bebrus ninkii la odhan jiray wuu baxsaday dimashq buu tegey naasir yuusuf buu la joogaa qolyo badan oo ciidanka ka midi waa kuwii yaacay ee boqorkii cabaasiyiintu dhexdhexaadiyey ee la yidhi ghaza iyo agagaarkeeda iyo meelaha falastiin ha degaan badh waddanka dhexdiisa iska joogaan laakiin waa ragga ay ragga culloobeen aan waxba gacanta ku haynin Qutus markaa wuxuu yidhi waxaan rabaa ciidankii mamaaliki albaxriya dhammaantii inuu dib u soo noqdaa ciidankaasi inuu dib u soo noqdaa khatar wuxuu ku yahay kursiga Qutus bale xaqiiqo taariikhiya haddaan sheego iyagaa dilay aakhirkii Bebrus laftiisaa dilay iyo koox watay laakiin Qutus inay khatar isaga iyo dawladdiisa iyo naftiisu gasho iyo in muslimku khatar galo
wuxuu qaatay intiisu khatar gasho oo muslimku uu badbaado yacni Quds wuxuu u taagan yahay inuu mamaaliki albaxriya uu ka xoog batay oo sidaa kaga takhaluso oo kursiga kan haysto laakiin ma iska dhicin karaa markaa dawladdii tataarka ahayd wuxuu ka doorbiday in isaga kursigan uu khatar galo bal ee uu aqbalay inuu kaba tanaasulo haddii ay muslimiintu isku raacday inuu tanaasulo wuxuu aqbalay inuu tanaasulo isaga iyo kursigiisuba inay khatar galaan laakiin faa'iidadu ay maxay tahay faa'iidadu ay tahay muslimku sidii uu guulaysan lahaa saa daraaddeed kafaa'adkii caskariga ahaa janannadii iyo raggii ciidanka ka tirsanaa iyo askartii mutamarrisiinta ahayd qaadadii kuliyaat alxarbi ka soo baxday ee ishayeen ayuu yidhi dhammaantiin dib u soo noqda waa laydin cafiyey waa niman khatara nimankaa uu soo celiyey laakiin waa nimankii luwisa taasic boqorkii faransiiska iyo ciidankiisa 700 ee safiine u watay waa nimankii ciidanka intay dabar gooyeen maca boqorka soo qabtay waa rag aan looga maarmin dagaalka tataar saa daraaddeed kursigan khatar ha gala buu qaatay alcafwu cinda almaqdira bay culammadu yidhaahdaan waa ammaan isagoo kursiga fadhiya oo ka xoog batay ayuu aqbalay dhammaantood inay soo noqdaan weliba waxa uu garanayay nimanka kani waxay ku kala firdhadeen waxaa la yidhaahdaa qaarkood salaajiqatu ruum bay u tageen turkiyay qaar galeen qaarkood urdun boqorkii kork meesha la yidhahda haystay bay u tageen qaar dimashq bay joogeen wixiiba dib bay u soo noqdeen bale madaxdoodiibuu si fiican u soo dhoweeyey si uu dagaalkaa ugu diyaargaroobo alqaa'id bebros ruknuddiin bebros ninkii la odhan jiray oo isagu waa nin muslim ah iimaan badanina ku jiro dagaalyahana waayeel khabiir ku ah dagaalka ah dagaaladii qudus lagu xoreeyey raggii ka soo qayb galaya ee najmuddiin iyo wakhtiguu qudus xoreynaya waa janannadii ciidamada hoggaaminayey waa labadii janan ee luwis iyo ciidankiisii jebiyey waa nin khabiira marka kan kana da'weyn qutus iyo qolada tan oo dhan wuu u yeedhay weliba waa ninkii dimashq naasir yuusuf markii ay ku soo socday hoolaakiya ciidankiisii lahaa waraan dagaal galla yidhaahdeen waynu baxaynaa markuu baxsadeen ayuu iskaga hadhay isagu keligii ma waajihi karo firdhadkii falastiin buu isna iska galay xaggana masar raggiisii waa la laynaya way ishayaan masarna wuu ku soo dhiiran kari waayey isagoo falastiin dhex wareegaya ayuu qutus farriin u diray uu leeyahay soo gal masar adigoo sharfoon waynu dagaal gelaynaa oo waxaynu iska celinaynaa tataarkee weliba markuu masar yimi wuxuu u oggolaaday iqtaac mantaqati qalyuubi iyo qurada tuulooyinka ku xigsan waxaasoo dhan buu siiyey wuxuu ka dhigay amiir min alumaraa ninka ay ishayaane firdhadkaa caynkaasi uu soo celiyey amiir min alumaraa'i alkibaar ayuu ka dhigay bibrisna waa nin waayeeleh dagaalyahana oo kafaa'a qitaaliya caskarinimo leh waa nin dakaa leh very intelligent ah takhtiidaadka caskariga ragga looga dambeeya ka mid ah waa nin hadduu yimaadana mamaaliki albaxri oo dham ay ku soo hiranayso yacni waa janan laga dambeeyo waa soo noqday isna qutus waxay u muuqataa inuu yahay nin ogol khatarta naftiisa marka koowaad laba had iyo goor dadka madaxda ahi ma jecla nin kaloo waddanka ama ummadda dhexdeeda magac iyo maamuus ku leh inuu dhinaciisa taagnaado waayo dadka madaxdii waxay jecel yihiin inuu alwaxiid noqdo ama urur yar ha haysto ama dowlad ha haysto ama kan ha haysto in laga garab hadlo ma jecla waa afraad yar dadka aqbala in qaada ay ummadda ku dhex jirto aan isaga ahayn waa dad yar walaa ururo islaamiya ha noqdaan walaa ururo kale ha noqdaan madaxdu waxaad mooddaa inay cadaadiyaan inay soo baxaan quwa kale qutus waa tiraaska aqbalay buu ka mid yahay markaasi dad la loolami kara ama magac iyo maamuus ummadda ku leh inay ka dhex muuqdaan
ولذلك أيها الإخوة وإن قرطان قضايا السياسة ماها معقولات قرى ماها أنا قرل يا أنا حقل يا أنا عينك له وقضايا كبيرة وباهن قفكو إنه جوانه دو مطربة إنه هقامية أما وحبدله إنه دول بدن وحكاية قابي وباهنته إنه قيميه شرارك siduu u kala dooranayo marbaan khayrba meesha oo inaad shar dooranaysaa siduu shararka u kala dooranayo waa yeel garan kara waa inuu noqdaa qof la ballaadan oo dadka cafi kara bara lay dilay ama baraana la dhacay ama bara kooxdayada laga soo horjeestay ama bara kooxdayada la cay ama bara kooxdayada la dagaalamay dabeeta dadka la heshiin mayno wax dad lagu hogaamiye maaha ولذلك قطز wuxuu qaatay bulshadii muslimiinta ee Masar degreediya wixii raacaba bishaakilaadkooda kala gedisan iyagoo wata inuu mideeyo قطز marka kan hadana wuxuu baxay qadiya saddexaad baa la yiraahdaa oo ah السياسة الخارجية السياسة الخارجية qayb waa muslimiin intii aan wali la qabsan shaam oo kale nimankii ayuubiyiinta joogay qaybna waa masiixiyiin imaaraadkaasi xeebaha ku taxan jooga ayuubiyiinta shaam jooga waa nimankii la colka ahaa dowlad almamaalik ee u arkayay towraan shaahiya inay dileen ee intaasoo duulimaad ku soo qaaday bale waxaynu ka warrannay qutus laftiisa inuu laba goor ku soo duulay muqiisadiin cumarkii la odhan jiray oo laba jeer celiyey waxaynu hore uga soo warrannay ciisadiin aybakii lagu soo duulay oo uu celiyey yacni imaaraadka shaam ka jira iyo masar dagaal baa u dhaxeeya oo intaasoo goorba ayuubiyiintu soo duuleen iyagoo masar ku duulaya laakiin qutus wuxuu qaatay go'aan ah nimankaasi inuu heshiis la geli karo waa nimankii mamaaligtii baxriga markay carartay dhammaantood soo dhoweeyey ee weliba rabay inay kula soo dagaal galaan dib ugu soo dagaalgeliyay meesha tan nimankan uu rabo inuu xidhiidhka la sameeyo waxa ka mid ah baqdaad markii la qabsaday qaar baan xagga tataarka u duulinay masar ku soo duulo ayuubiyiintan ka mid ah iyadoo baqdaad la haysto caasimat alkhilaafa alislaamiya ayuu tataar ciidan kuma saarina wuxuu ciidankiisi ku soo saaray masar inuu qabsado iyo dowlad almamaalik waxaas oo dhibi iyadoo jirta ayuu qutas wuxuu ka fakeray islaamkii waa kanoo saddexdii dowladood ugu waaweynaa jabe waxaa hadhay masar sidee islaam loo badbaadin karaa maaha sidee kursigiisa loo badbaadin karaa taasi waxay keensanaysaa dad muslimiina oo cadow kuu ah ama aan kula koox ahayn ama mararka qaarkood xagga gaalka u janjeedhay inuu isku dayo inuu ka soo jiito ama ka soo kaxeeyo ama ugu yaraan inuu muxaayidiin ka dhigo muxaayidku wax weeyaan dhexdhexaad inuu ka dhigo oo isaga iyo tataarka isu daayaan caqliyaadka maanta noole waxay odhan lahaayeen iyagaa murtadiina ka bilow saxankaa maaha ama caqliyaadka maanta jira waxay odhan lahaayeen gaalka ku-xiga un ku bilow oo qoladan kristanka iyo meeshan ka bilow tataarku wuxuu arkaa waxaan oo dhan khatar ka weyni inay jirto ayuu qutus u arkayaa saa daraaddeed mashkilaadku way u kala ratiban yihiin iyadoo acdaa ay u wadayiin isaga qoladan kristankii waa u acdaa oo kuwa dagaalka hadda kala soo baxeen ayuubiyiintan muslimiinta sheeganaya waa u acdaa oo kuwa intanoo goor ku soo duulay tataarkuna waa u col oo intanoo gura ka soo guuray saddexda colba mar lama wada dagaalami karo si awgeed wuxuu ku talagalay tataarka inuu colnimadooda u daayo iska dhiciyo kristanka inuu heshiis la galo oo ay nabadgelyo unisa siiyaan kuwa muslimiinta wuxuu ka soo jiidan karo inuu ka soo jiito oo safkiisa ku soo biiro siyaasada alkhaarijiya saasuu ku bineeyey dabeetana waraaq buu diray waraaqda koowaad wuxuu u dirayaa annaasir yuusuf dimashq kii haystay oo markaa ka ugu xoog buurana ayuubiyiinta waraaqda wuxuu ugu qorayaa niyo waxaan rabaa buu leeyahay masar iyo shaam inaynu midayno oo cadowga adiga kugu soo socday kugu soo horeeya aynu iska wada dhicinno waa intaan dimashq la qabsan dimashq iyo xalab buu ka talin jiray intaan la qabsan cadowga inaan kula dhiciyaa baan rabaa labada wadanna intaynu isku darno adigu madax ka noqo laakiin gaalka aan la wada dagaalanno
waraaqdu u qoray wuxuu ugu qoray baa la yidhi wain ikhtartanii khadamtuk wain اkhtarta qadimtu waman macya min alcaskari nujdatan laka cala alqaadimi calayk fain kunta laa ta'manu xuduuri sayartu laka alcasaakira suxbata man takhtaar wuxuu leeyahay haddaad aqbasho naa'ib baan kuu noqonaya waa kuu shaqaynaya dowladda adigaan kuu dhiibaya haddaad rabto anigoo ciidankayga wataan kuu imanaya halkaasaan kaala difaac gelaya masar sugi maayo inta la imanayee shaam baan ka dagaalgelaya anigoo ciidanka wata haddaad aniga iga shakisantay buu yidhi isku darso ciidankoo dhanna aan kuu soo diro ciddaad adigu doonto madax uga dhigo ciidankii masar joogay waan soo dirayaa shaam ha kuu yimaado adiga ha ku difaacaan weliba ciddaad doontana madax ka dhig buu leeyahy ciidankaasi oo kaxayso naasir ma aqbalin midnimadaa wuu diiday midow ma raba buu yidhi waabuu isxambabooro wuxuu yidhi anigaaba dagaalamaya maxaan cid ula madoobaya laakiin kooxda dagaalanta ma ahayne markii xalab la qabsaday ee isaga lagu soo dhowaadayna wuu cararay waataynu taarikhtiisa hore uga soo warrannay sidii uu ordayo kolba meel u gelayey meel yaroo jafar la ydhahdo saxaaro ah in hoolaaka ciidamadiisii intay ku qabteen hoolaaka loo diray nasiib darra laakiin intii hoolaaka lagu sii waday ayuu qutus soo jebiyey ciidamadii tataarka firdhadkoodii baa isaga hoolaaku u tegey hoolaakaa dib u soo celiyo oo yidhi kani waa khaayinkuu shaqayn karaya meeshii madax uga dhigo isagoo dib loo soo wado ayaa firdhadkii ciidanku jebiyey qutus firdhadkoodii tataarkii oo cadhaysan ayaa cidlo ka helay iyadoo madaxnimo loo soo wado kuwaasaa diloo ka takhallusay isaga ayan kaanat naasir wuu diiday dabeetana wuu cararay naasirkaasi isagu siyaasadda kuma guulaysan shacabkiisii iyo ciidankiisiina ma difaacin aakhirkii markuu marayay ciidamadiisii qaybo ka midii markay soo gaadheen khazaya meelaha kan iyagoo aanu isagu la socon bay u galeen ayay qutus u galeen saaxibu xamaa meesha la yidhahda ninkii haystay alamiir mansuur ayuu qutus waraaq kale u diray uu yidhi waanaan nimankaa la wada dagaalanno kaasi wuu soo aqbalay waxba kama qaba buu yidhi mid saddexaad buu la xidhiidhay almugiith cumar waa kark urdun meel ka mida nin haystay oo mar horena yidhi waan dagaalamayaa laba jeerna ku soo duulay masar laba jeeroo horuu masar ku soo duulay waa ninkaan idin lahaa markii la qabsaday baqhdaad buu isagu duulimaadka xagga ku waday laba jeer buu kaasina wuxuu aqbalay waan anigu adigana ku raaci maayo tataarkana raaci maayo iska dhexdhexaad baan ahaanaya alashraf ilayuubi kii la yidhaahdee ximis haystay kaana waraaq buu u diray kaasina qutus si toosuu u soo diiday isagu wuxuu yidhi anigu safka hoolaakaan ku biiraya dowladda xoogga weyn la dhankeeda ayaan raacaya almelik saciid mid la odhan jiray laqabkaa haystay xasan ibnu cabdilcasiis baniyaas ninkii xukumi jiray kaasina wuxuu u galay isaguna jeeshi tataar natiijadu waxay noqotay xamaa ninkii haystay diblomaasiyaddii qutus uu aqbalo isagu wuxuu yidhi waa kugu soo biiray kii xalab iyo dimashaq haystay isagu waa kii baxsadee jabay laakiin isna ciidamadiisa wixii ka hadhaa iskaga cararay oo iyana ku biiray mugiith ninka la yidhaahdo kaasina wuxuu yidhi anigu dhexdhexaad baan noqonaya adiga iyo iyaga toona raaci maayo labadan kalena waxay ku biireen safka idan shan ayuubiyiina weeyaan mid aqbalay mid cararay oo ciidankiisii aqbaleen mid yidhi dhexdhexaad baa noqonaya iyo laba ku biiray
xagga tataarka ku biiray qutus marka kan wadcigii daakhiliga ahaa wuu dejiyey oo dowlad raacsiisan culamadeedii askarteedii bikulli ashkaaliha iyo bulshadeediiba buu samaystay hadafku wuu cadyey oo laba kama aha ee waa inuu wax iska dhiciyo mamaaligtii wuu cafiyey way u soo galeen ciidamadii nafsiyan bay u raaxaysteen waayo ciidanku markuu isagu isku maqan yahay iyo markuu meel u wada jeedo waa kala nooc alcaduwi alkhaariji wuu kala soocmay oo badhna tataarkay ku biireen badhna isagay ku soo bireen badhna xiyaadi bay noqdeen duwalkii yaraa ee saliibiyiinta iyaga waynu iman doonnaa iyo si uula dhaqmay intii uu wararkan waday tataarkuna waa soo socdeen shaam oo dhan way soo liqeen marka iyana markaa xuduudda masar bay marayaan ghazay marayaan ghaza ayuu tataarkuna soo gaaray shacabka masar waa shacab marka kan dhibaato badan oo dhaqaale soo martay tataarka iyo maxaa la yidhahaa sumcaddiisii dee cajiibka ahayd ee ay odhan jireen haddaad maqasho ciidan tataar baa la jebiyey rumaysan ayaa maahmaaha noqotay wixii oo dhammo mushkilada waa haysata wuxuu u baahan yahay markaa ummaddu intaanay dagaalgelin hamadeeda kor loo qaado in la dagaalgeliyo bulshada qaab macnawiya in loo dagaalgeliyo masar laakiin iyada lafteeda doctor raagib asarjani wuxuu leeyahay laba qiimo oo fiican baa yaallay laba value oo wanaagsan kow madhab sunniya baa marka kan biyo dhigay oo dee wakhti yar ka hor salaaxaddiin alayuubi ka hor dee dowla alfaatimiya shiica raafidiyiin oo aad u liita ayaa maamulayay waddanka salaaxaddiin alayuubi baa ka qabsaday marka kan culammadii muslimiintu ku soo keenay meesha madhab sunniya si fiican u faafay mamaaligtana waxaynu ku naqaanay inay yihiin dad culammada qadariya maadaama aynu nidhi tarbiyadoodiiba ahayd tarbiya diin iyo dad culammada qadariya rag waaweyn oo culammadii muslimiinta ee rumuusina wakhtigan waa nool yihiin waxaa ka mid ah sulطaan الculamaa alcizi bn cabdisalaam alcizi bn cabdisalaam oo marka kan 80 jiraa nool waa 577 buu dhashaan filaya wakhtigan hadda dagaalka loo diyaar yahayna waa 658 alcizi bn cabdisalaam markaa 81 sano meelahaasaa da'diisu maraysa waxaa jooga alcizi bn cabdisalaam oo ninkii ardaygiisii uu bixiyey maxay sulطaan الculamaa ardaygiisu waa kuma waa bnu daqiiq alciid markaa waddanka culamaa joogta laga yaqaano alcizi bn cabdisalaam ummaddu inaanay culamo tawjiihise ka maarmin baan idin tusayaa waxyaabaha guusha u keenana inay ka mid tahay bacd allahi subxaanaه wa tacaala alcizi bn cabdisalaam wuxuu ahaa caalim sunnada ku adag isla markaa mujtahida isla markaa wuxuu ahaa bay dhahaan nin kulmistay bayna fatwa alcibaada waalcaqiida والفتوى في الأمور السياسية والاجتماعية نين مجتهد أبوها بيد هذا علوم الشرعية عقيدة هي شرعية عبادة هي معاملات لسفي عنه يقانا وكفت وضع دانك كلامك الله يقنا قضايات كسياسية نين بصيرة ديروله ومفتكو أبوها بيد هذا العز بن عبد السلام سينوفهمنه sheekha kani qiimuhum bulshada waxaa ku dhexleeyaan laba qiso idin tilmaamo kow ciise ibn cabdisalaam masar uma dhalan reer masar maaha waa nin reer dimashq ah dimashq buu ku koray dimashq buu wuxuu joogay khatiibka jimceed ahaa qaadiga muslimiinta ahaa muftiga dowladda ahaa laakiin asaalix ismaaciil alayuubi nin la odhan jiro dowla ayuubiya ka tirsan ayaa wuxuu qaatay go'aan ah najmudiin ayuubigii masar haystee mamaaligta ka horreeyey ninkii mamaaligta sameeyey inuu ku duulo
dabeetana wuxuu aqbalay inuu taxaaluf samaysto qolo kristana inuu kaxaysto isaga iyo gaaladu inta israacaan inay ku wada duulaan masar bishart gaaladu maxay ku raacaysaa labada magaalo sayda iyo shaqiif la yidhaahdaan idin siinayaa buu leeyahy labadaa magaalo idinku qaata hadday igula duushaan masar waxaanan aqbalayaa hubkana in laydinka iibiyo hubka in laydinka iibiyaa macnay samaynaysaa ma garanayo saa u fahmi kartaan wakhtigaa hore addawla alislaamiya baa sanaacaadka dunida hogaaminaysay marka iyagay ahaayeen dadka hubka rasmiga ee fiican samayn jiray marka wuxuu leeyahay waxaan kaloo ogolahay muslimiintu inay hubka idinka iibiso oo aynu ku wada duullo qoladaas alciz bn cabdisalaam oo mufti dimashq ah ayaa wuxuu yidhi boqorku asaalix bnu ismaaciil mulkigiisa shakhsigaa maaha buu yidhi dhulka muslimiinta isagu bixin karo waxaad leedaa la bixiyaaye dhulka muslimiintu boqoroo waxaad adigu leedahay maaha buu yidhi sidaa awgeed ma asaxaysa buu yidhi waan bixiyeydu waa marka labaad buu yidhi muslim baa lagu duulayaa hubkaa laga iibinayaa masiixiintuna laa yajuusu baycu silaax buu yidhi hubkaa in la iibiyaana ma bannaana si muslim loogu duulo inaad ka iibisaan hub iyaduna ma bannaana buu yidhi dabeetana waxaa la yidhi qaadinimada waa lagaa casilay muftinimada waa lagaa casilay duruusta waa lagaa joojiyey khudbaddana waa lagaa joojiyey aamus wax dambe ma sheegi kartid markii wax walba laga casilay ayuu iskagaba tegey magaalada way xidheen mudduu xidhnaa xabsigii markii uu ka soo baxay oo wax walba loo diidayna uu iskaga tegey baytulmaqdis buu qabtay baytulmaqdis buu iskaga talagalay inuu halkiisaa wax ku dhigo oo wax akhriyo isagoo halkii jooga ayaa ismaaciilkii asaalix ismaaciil alayuubi iyo qoladii kiristanka oo wada socoto duulimaadkii iyo qudus soo maray sheekhiina wuxuu joogaa baytulmaqdis dabeetana ninkani waa nin sumco iyo bulshada magac ku leh weli wuxuu rabaa inuu muslaxdo sheekha nin buu u diray wuxuu yidhi waxaad ku tidhaahdaa farriintaa gaadhsii nin baa u yimi sheekhiiyo meeshiisa iska joogo wuxuu ku yidhi sheekh in wixii aad mansab haysatoo dhan lagugu soo celiyo qaadinimadii iyo madaxnimadii iyo muftinimadii iyo khitaab wixii oo dhan inaad hesho iyo wasiyaada weliba dheeraadna lagugu daro waxa kaa xiga uun inaad suldaanka u yaro cudurdaaratid suldaanka u tagoo tankasir leh u yaro cudurdaaro oo gacantuun ka dhunka buu yidhi bes intaa un samee suldaanka intaad u tagto salaam dheh khalaas arrimuhu dhegdheg bay noqonayaan wax waliba way dhammaanayaan العز بن عبد السلام وحو جواب والله يا مسكين ما أرضاه أن يقبل يدي فضلا أن أقبل يده يا قوم أنتم في واد وأنا في واد والحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به وحو يدي مسكين يهو إنو أنا قعنت إذا دونكدر هالي كما هي تيس داينا دونكده هذا واحد لا يكالي بقر كسر دوكه يسقوا إنو يمادا أنا دونكده ما ربابو كيدي waxaan kuu sheegayaa buu yidhi idinna dhan baa u socotaan anna dhan kaleaan u socda isku webi ma haysanna buu le isku dooxo isku wadda ma hayno idinkuna waddaa haysaan aniguna waddo kale ayaan haystaaye ilaahay baan mahadinayaa waxa idinkaa uu idinku ibtilay aniga iga caafimaad yeelay dee adduun baa aakhira siisateene ilaahay intuu waxaa idinka idinku ibtilay aniga iga caafimaad yeelay baan waxay dhahaan mar kaluu xidhay dabeetana isagoo khaymad yaroo kanuu boqor ku jiro dhinaceedaa ku xidhan oo qur-aan akhrisanaya bay idhaahdeen baa waxa u soo galay saliibiyiintii baa waxay u yimaadeen ismaaciilkii iyagoo la hadlayuu yidhi qur-aankaa baxaya ma maqlaysaan markaasay idhahdeen haa wuxuu yidhi waa muslimiinta wadaadkii ugu weynaa ayaa halka igu xidhan waxaanan u xidhay arrimihiinuu diidey yacni waa uun irhaabigii ugu weynaana waanu haynaa duwalka reer galbeed marka kii ugu weynaana xabsiguu igu jiraa weeyaan qoladaasi marka wuxuu leeyahy kii ugu weynaana halkuu joogaa oo uu ii xidhan yahay laakiin qoladan masiixiyiinta waa qaar ka caqli badanba ninka kan waxay ku yidhaahdeen annaga hadduu ahaan lahaa qisiskayga ugu weyn cagihiisa intaannu maydhnaa baanu biyihiisa cabbi lahayn bay yidhahdeen inaanu xidhna daaye
dadka bar ninkii cilmiga u hayay dad xidhatay annagu ma nan xidhaneen bay dhaadeen ka noogu weyn intaanu adimadiisa maydhno ayaanu cabbi lahayn nasiib wanaagse waataynu dhin najmudiin ayuub markaynu ka soo sheekaynaynay qoladan wada socotoo dhan intuu jabiyey buu bayt almaqdis xoreeyey 643 waynagii soo sheegnay in la xoreeyey bayt almaqdis meesha dadkii lagu xoreeyey buu ka mid ahaa sheekhu markaa wuu kaxeeyey najmudiin ayuub baa kaxeeyey oo geeyey masar baa laga dhigay muftigii iyo qaadigii iyo wixii oo dhan laakiin sheekhu markuu masar yimi ayuu wuxuu u yimi niman mamaalika oo umara oo dadka xukumo oo caynkan oo uu boqorku leeyahay dabeetana haddana sheekhu masar buu fatwo kale ka soo saaray nimankan beecooda iyo maamulkooda toona laa yajuus ma bannaana buu yidhi oo sheekh maxaa dhacay waa addoommo buu yidhi oo cidimo xorayn manaasib alculya lidowla alislaamiya xornimo u shardiya beecooduna ma asaxo weli waa addoommo buu yidhi nimankan waxba kama socdaan dowlad dhan oo meel ka talinaysuu sheekhu yimi laakiin fatwadiisii haddana waxay taagan tahay wixiina kane sidan uma socdo waa la cadhooday ilaa xad ay isku dayeen inay dilaan mid ka mid ah amuuradii ugu waaweynaayo qolada tan baa u soo galay isagoo raba inuu dilo seeftiisa sitaa la yidhi albaabku ku garaacay sheekha inaanu dhalay baa u yimi wuxuu yidhi aabba waa hebel oo seef sita markaa wuu garanayaa dee mamaaligtuna dhiiggu waa la fududaa waa hebel oo naa'ibkii oo seeftiisiina sito hubaysan wuxuu ku yidhi waryaa aabbahaa in ilaahay dartii loo dilo wuu ka liitaaye ka fur albaabka soo daa buu ku yidhi yacni hadday shahaada fii sabiili illah aanu dhimanayo waxaas dhib maaha buu yidhi soo daa wuu soo galay markuu u soo galay sheekhubu haddana dib u baqa sheekh maxaad saa noogu samayso war kaluu bilaabay sheekhuna wuxuu istaagay halkiisii haddaad rabtaan saasumaa la yeelaya boqorkii bay gaadhay boqorkiina wuu cadhooday sheekhii uu baytulquds isagoo maxbuuska ka soo daaya caynkaasa haddana fataawidan bixinaya boqorka laftiisii uu ka cadhooday markii la cadhooday ciisadiin ibnu cabdisalaam wax kale ma samaynin wuxuu yidhi caynkaa ma tahay haa khalaas qaadinimada iyo muftinimada iyo maamulka iyo wixii noo dhan qaata mar haddaan la oggolayn mabaadi' diina intaan sheegay inay faafto waan iska tegayaa dameer uu haystay buu fuulay reerkiisiina dameer kaluu saaray magaaladana uu iskaga baxo tuuluu isaga baxay wadaadku adduun 2 dameer buu ka wataa laakiin masar oo dhan baa ka daba dhaqaaqaday alcizi bin cabdisalaam magaalada hadduu ka baxa baa la yidhi yaa joogaya tujaartii culammadii dadkii wixiiba waa la dabagalay boqorkii baa war loo geeyo waxa la yidhi magaaladii waa gilgilantay sheekhiina safar yacni culammada dadku culammadooda way qiimaynayeen oo agteeda culammada magac ku lahayd walidaalik baa sheekhu wax ma dilin wax ma maagin waxba kale ma samaynin mujarad waanu iscasilay waanu iska tegey laakiin magaaladii dhammayd baa daba gashay boqorkii wuxuu arkay in qadiyadiisuba ay khatar ku jirto isna wuu ka daba tegey boqorkii buu wuxuu u tegey alcizi bin cabdisalaam baa loo tegey sheekh soo noqo baa la yidhi wuxuu yidhi soo noqon maayo fatwadaasoo aa fulisaan mooyaane oo maxaa see loo fulinayaa nimankani waa addoommo waa la iibinayaa suuqaan geynayaa waa la iibinayaa marka la iibiyo ragga iibsada ha xoreeyaan markay xoroobaan hadday doonayaan maamul u dhiiba markaa adigu madax ka dhigo waa madaxdii dawladdu iibinaya halkaasuu taagan yahay isagu anugu nimankaa madaxdaa waan iibinayaa buu leeyahay haddii aad aqbalayso sidaana waan soo noqonaya haddii kalena oo saad odhanaysaa baa la yidhi lacagtooda baytulmaalkan ku shubayaa buu yidhi waan iibinayaa dabeetana muslimiintan ku bixinayaa danahooda guud waxay noqotay dawladdu inay khalkhal gasho iyo in la aqbalo fatwada alcizi bin cabdisalaam waxaa la yidhi waa la aqbalay wuu soo noqday madaxdii iyo umaradiibuu u yeedhay kolba mid buu soo taagay ayaa gadanaya dabeetana qiimaa la sheegaa wuu qaaliyeeyey intaas siin maayo buu yidhaahdaa addoonkan dawladda alaho qiimo qaaliyuu ku iibiyey lacagtii uu ku iibiyeyna khidmaadka muslimiintu ku bixiyey maxaan u sheegayaa qisada alcizi bin cabdisalaam waxaan rabaa inaan idiin tilmaamo
dawladda qura maaha waxa dagaal galaya ciidamo qura maaha waxa dagaal galaya waxa weeyaan ummadani waxay haysataa rasiid dad shacabkooda hadday wax u sheegaan ay shacabku aqbalayaan oo aan maamul iyo askar ku xidhnayn walidaalika markii tataarka qadiyadiisii soo dhowaatay dawladdiina nin saalixi uu qabsado qutus la yidhaahda qutusna go'aanka uu qaatay inuu dagaal galo siyaasa alkhaarijiya iyo daakhiliyaba uu nin ku guulaystay noqday ilaa xaddin ma ciidamadiisii iyo wixiisii oo dhan urursaday muslimiintii dabadda joogtay wixii uu la heshii karayay aqbalay oo dhan uu la heshiiyey wixii gaalada raacayay inay toos gaalada u raaceen waxaa loo baahan yahay shacabkan in la dhiirigeliyo ay dagaal galaan shacabka masarna wakhtiga kan dee dagaaladii front gaar oo dee kristankaa bay ku jireen dagaaladii crusadeska marka waa shacab qiimatuljihaad aanay weli agtooda ku dhimanin aljihaadu fii sabiili illah waa shacab weli uu agtooda ka nool yahay qadiyaddu halkaa markay marayso waynu leenahay shacabkii masarna waa loo khudbadeeyey waa culammadoodii baa la hadashay ummaddii waa la dagaalgeliyey ayaa hoolaaka waraaq soo diray waraaqda wuxuu u soo dhiibayey 4 nin oo tataarkii ka mid ah dabeetana nimankii rususha ahaabaa magaalada qaahiro soo galay waraaq bay u keeneen qutus waraaqda maxaa ku qoran باسم إله السماء الواجب حقه الذي ملكنا أرضه وسلطنا على خلقه الذي يعلم به الملك المظفر الذي هو من جنس المماليك صاحب مصر وأعمالها وصائر أمرائها وجندها وكتابها وعمالها وبادها وحاضرها أن جند الله في أرضه وهناك شيئا أن جند الله في أرضه خلقنا من سخطه وسلطنا على من حل به غيظه فلكم بجميع الأمصار معتبر وعن عزمنا مزدجر فاتعظوا بغيركم وسلموا إلينا أمركم قبل أن ينكشف الغطاء ويعود عليكم الخطأ فنحن ما نرحم من بكى ولا نرق لمن اشتكى فتحنا البلاد وطهرنا الأرض من الفساد فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب فأي أرض تأويكم وأي بلاد تحميكم رسالة تنور رسالة دير هناك وحلي مقع إله عرك له أي واجب كطاعة دي ستهيبا كوب فرفرطي أي دول كي مكانسيي يا خلقي سيقص لضي بغر يهوب يرميش تشوغا ee waliba addoomaha ka mid min jinsi ilmamaalik ka tirsani ee masariya inta u dhadhow xukuma waxaad og tahay buu yidhi annagu inaannu nahay askartii ilaahay cadhada ilaahay baana laga abuuray wixii rabbi nacana waana lagu salliday waxaan dhul soo baabi'iyey baa kuugu filan cibro qaadasho ee dadka kale ku cibro qaada buu leeyahy oo maxay yeel amarkiinna noo dhiib intaan ceebtiinnu muuqan oo gafkiinnu idinku dhicin annagu ku ooya uma naxariisanno ku ashtakooda uma qalbi dabacno dhulka waannu furannay fasaadkana waannu ka tirtirnay waajib idinka orod baa idinku ah buu yidhi annagana eryashaa nugu ah inaa idinku yaacdaan waa waajibkiinna buu leeyahay anna inaan idin caymadiyaa waa waajibkay saaran dhulkee idin hoyn kara xaggaa seeftayada ka geli kartaan gacantayada lagama baxsado fardahayaga lagama dheereeyo seeftayadu waa sida danabka warmahayagu waa kuwo wax jeexa qalbiyadayadu waa sida buuraha tiradayadu waa sida ciidda qalcad iyo xusuuni yacnii meel la galaa wax nagama celiso ciidan la samaystaa wax nagama anfacaan baryadiinnana looma aqbalo waayo buu yidhi xaaraantaa cunteen oo salaanta inaa celisaan baad diiddeen oo dhaartaa beeniseen oo cuquuqul waalidaynkaa idinku tiro batay oo cisyaankaa idinku badan ku bushaaraysta buu leeyahy dullinimo iyo mahaana
markaasuu qur-aanna ku soo qoray meel kasta adiib munaafaqaa jooga kuwan wuxuu soo qoraya ee afkan carbeeda caynkana soo qoraya waa udaba munaafiqiin oo tataar ka tirsan qur-aan bay soo istidlaanayaan dhayso warqadda holaaka waxa ku qoran فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تعملون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون هلاك سوقرية ما أنت بولي عذابك وح دلية أيا ليدين وحا عمل سميسين دراديد كوا ظلمك السماية ماشي ونقون دونا وقران دونا بولي هلاك وحليه وقد ثبت أن نحن الكفر وأنتم الفجر بولي واسوغنت بيقول أنكو إنا نقالناي إذنين فاجرين تهين وقد سلطنا عليكم من بيده الأمور لكن وحنا وكين التحامي بيقول الله قعنتي سوح ولي بكو تشيران ترى بدني دون أنك أكتيا ووحير بيقول شرفتي أننا أكتيا دوا ذليل لمو ما لملوككم علينا بغير dullinnimo waxaan ahayn buu leeyo aan boqortooyooyinkiina u hayaa ma jirto waraaqdan wuxuu ku gebagabeeyey falaa tutiilu alkhitaaba wa asricuu radda aljawaab warkana ha igu badinina jawaabtana dhaqso u soo dira war yaroo kooban oo ways dhiibnay una soo dira dee wax kale laydinkama sugayo weeyaan saasuu hoolaa ka soo qoray والرسالة أن دبلوماسية أقونين دولكم مركز وذا هضليان ولو ضعيف يكاد الله هضليساه نوع من ماء الوجه بيور دوران أو سيدا دي أسكرتو أما ضدك السوق وذا هضلان ولا ما هضله قفك الدولة معمولة ولو ضعيف اسكي وإذا كان كي الدولة يريرو أنت الدولة وين تقال إذا دنا هلا بدأ الدولة ضد بانك وذا هضل هي سيدي مستقبلك الله هو مرن لها واللغة الدبلوماسية قفك ماء الوجه بالله إلى عليها لكن هلاكت حتى تاسكم شرته رسالة سوح ويان والدقال وحنا ويان إسديبة إذن كان وح شرط يكحدن وحيسوي يا مركا قطس قاددي يا أمردي يا وزردي سيبو سوي يا وعلي عيدا ما قدر ما ينقص صعدة عيدا كقدر أن ورنا النقطة عيدا كما قنع سبوير ورنا النقطة كما قنعان يوالله قصبائنا كان نقضان أنا جوحي يقوم مقتابولين وحس كدعينه وخيار صعب أكبر دولة سدح دولة دو وين مسلمين الصوال قضي من تركستان الشرقية تشاينا لقى صواب بلابه مسلم كي شوقي إلى إيا غزي مريان فلسطين أنت كده حلوحي مسلم شوقي ويكسو تخلصين حق الشيء وأنا من كي كتخلصي تشاينا إيا كوريا إيا واحد دول لبد إيا تبن دول دو يريرو ماشي أكو طحن إيش يودا ما يدسول لقين عيدا كاين طال لكن لقو هرتاق خيار كاين لقاطه خيار فضود ماها وهي الدولة كوريا إلى بولند بيكتاليان أنت ودا حيسا مركا كان كوريا إلى بولند أنت ودا حيسا كتاليان والدولة كهوب بدن كسمعد وين عيدا كيدو سمعد بدن هايستو عيدا ما وينو مسلمين والدولة الخوارزمية iyo أرمينيا iyo كورتشيا أما تشورتشيا iyo الدولة العباسية iyo يوروب iyo الشام وحاصل دم بيلقين قطس لكن وحوليه هي وحرب أيضا دجالبه قاددي عيدمدي ونقنعية دجال كنا ما فضوضا لكن محو استعماله وحيد هذا لما طريقه استعماله كو وحول وريا ومدحني عند الله هذا إياه وروان دجالما يا بودي وان دجالما يا مركان الله يهينا عندما دري مايو أنا ألقي التتار بنفسي أنا تتار كنفتي ذكره ارتجيه معها دولة يعيدن يا واحد دري ما يبوليه أنا جو عسكرية أو دجالما يا أيام فرنت كتجيه وأودي كريه وأن المدح دي مدحويني وضن كأنه عيدا مضى إلى ضد قال تجا لكن وحوليه هي ضدك الرباين وقنعان دنتو الربا إنه دنتو دون يبو الرباين وضدك قنعيه وحوليه وان دجال الله مياه
qaa'idkuna hadduu ummadda ka horreeyo ummaddu way daba socotaa saxaabada maxaa geesinimada baray nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam madiinaha habeen qayla yeedhay dabeetana nebigaa u soo horbooday abu طalxa farasuu leeyey ayuu dhufsaday farasku koore iyo waxba ma wato waa leedo ma sugin inta wax la saarayo wuu baxay nebigu calayhi salaatu wasalaam intii dadku isu soo baxbaxayeen ayuu soo noqday nebi moxamed isagoo le lan turaacu waxba ha cabsanina yacni anaa ka war keenay meeshii dhibtu ka jirtay waa qaa'id ilumma isagu ka war keenaya halka dhibtu ka jirto oo saxaabadiisii geesiyaada ahaa buu u soo noqday isagoo faraska wata markaasuu wuxuu ku leeyahay lan turaacu laqad wajadtuhu baxra waa xadiidkii bukhaari faraskan abu طalxana waxaa sida xadiidka ibnu maaja tilmaamaya waxaa lagu yaro tilmaami jiray inuu faras gaabiyo yahay nebigu wuxuu yidhi waa bad kani orodka waxay yidhaahdaan maantaa kadib lama qabanin faraska laftiisana faras dheereeya alla ka dhigay si kastaba ha noqotee qaa'idku hadduu ka horreeyo ummadda oo waxaan uu sheegayo isagu ficliyan u samaynayo ummadda way daba gashaa walidalik buu caliy bnu abi aalib oo geesiyadii muslimiinta ugu weynaa baa wuxuu lahaa marka dagaalku adkaado nebigaanu ku gaban jirnay buu leeyahy waxaynu naqaanaa ghaswatu xunayn markii la jabay ee la cararay nebi moxamed intuu dhawaaqay buu lahaa ana nebiy ana bnu cabdilmuطalib laa kadib iyadoo saxaabadiisii jabtay oo ay ahayd hadduu saxaabadu jabto inaad yaro dhuumato ama uun si uun samayso ayuu nebi moxamed qaylinayaa weli oo leeya anigu waxaan ahay nebigii alla soo diray in cabdilmuطalib baan aho been maaha buu nebi moxamed leeyahy calayhi salaatu wasalaam qutus wuxuu rabaa markaa atarbiya bilqudwa jananadiisa iyo ciidamadiisa inuu tusiyo inay shahaadadu wax la doonto tahay inaanay noloshu wax la isku adkeeyo ahayn markay u baahan tahay inuu qofka muslimka horu maro walidalik buu wuxuu ku yidhi waan dagaal gelayaa waa markii koowaad shay labaad buu u sheegay oo wuu wacdiyey wuxuu yidhi yaa umaraa'i lmuslimiin lakum zamaanun ta'kuluuna min bayt ilmaal wa antum lilguzaati kaarihuun waar madaxdii muslimiintaay waar in badan baa xoolihii dowladda muslimiinta cunayseen buu leeyahy maantana dagaalkaa soo nacnacaysaa anigu waan baxayaa ee ninkii raba inuu dagaalamo u iraac ninkii aan rabinowna waan ku fasaxaya iska hadh buu leeyahy laakiin waxaad ogsoonaataa dembigaaga iyo dembiga dumarka muslimiinta iyo ummadda muslimiinta inay adiga luquntaadhatay ninka hadhayo khudbaddaasi u jeediyey khudbaddiisu waa laba shay waxa weeyaan anaa dagaal gelaya shayga labaadna waxa weeyaan idinma qasbayo wixii raba inay dagaalamaan oo iraaca jihaadka layskuma qasbo nebi moxamed marnaba munaafiqiinta ma qasbin bale intuu baxaaba iska hadhaan hadhowna weliya bilay maraano way cudurdaartaano wuu ka aqbalaa bale isagoo sii socdaa kolba ninka daba yimaadaa markaasaa la yidhaahdaa nin baa soo socda ilaahu hebel ka dhig buu yidhaahdaa yacni danka ma lahayn munaafiqiintu inay hadhaan ilaahayna qur-aanka wuxuu ku tilmaamay hadday idinla baxaan la awdacu khilaalakum ilaahay wuxuu tilmaamay hadday idin raacaan munaafiqiintu inay un fasaad idinku kordhinayaan iyo mashkilad yaanay wax wanaaga idiin haynin saa daraaddeed nebigu calayhi salaatu wasalaam jihaadkiisu mu ahayn mid dadka la qasbo la ydhaha qasab ku dagaalama iyo raaf dad askar lagu qaadaa ma jihaatamaan walidaalik khudbad isagoo ooyayu wuxuu ugu gebagabeeyey baa la yidhaahdaa yaa umaraa'i almuslimiin man lilإslaami in lam nakun naxnu madaxdii dowladda muslimiinta ahay yaa islaamka u halgamaya ama difaacaya haddaynan inagu difaacin buu leeyahay kelmaddaasi madaxdiisii way ka oohisay waxaanay qaateen go'aanka ah inay la dagaal galaan qutus wuxuu isku dayey inay arrintu ka noqnoqosho yeelanin wuxuu u yeedhay afartii nin ee warqadda siday dabeetana afartaba madaxuu ka jaray dabeetana madaxyadoodii buu albaab ka mida albaabka qaahiro sudhay culammada qaar waxay yidhaahdaan malaad qudus mas'aladaa muu asiibin waayo cinda almuslimiin rususha lama dilo dadka ergada ee la soo diro lama dilo
nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka asaxay laba nin ibnu nawaaxa iyo ibnu uthaal laba nin oo la odhan jiru musaylamat ilkadaab soo dirtay musaylama nebi baan ahay buu leeyahy dabeetana nebi moxamed buu u soo diray laba ergey labadii ergey baa nebiga u yimi wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam atashhadaani annii rasuulu ullah waar ma qiraysaan inaan ilaahay rasuulkiisii ahay waxay idhahdeen nashhadu anna musaylamata rasuulullah nebi moxamed bay hor taagan yihin waxaanu qiraynaa bay dhahen musaylama inuu ilaahay rasuulkiisii yihi musaylama inuu ilaahay rasuulkiisii yahay baanu qiraynaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam aamantu billaahi warasuulih anigaa rumeeyey ilaahi iyo rasuulkiisiiba ee haddaan cid dilayo haddaan rasuul erga la soo dira haddaan dilayo waan idin dili lahaa buu nebi moxamed ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ee agtayada ergada lama dila buu nebigu leeyahy qutus laakiin mahmaa kaan ijtihaadku si kastaba ha la maree afartiiba intuu dilay ayuu albaabada sudhay marka kan qutus mashkiladda ugu weyna haysataa waxa weeyaan waa mashkila iqtisaadiya waayo ciidan ballaadhan oo la dagaal geeyo wuxuu u baahan yahay dhaqaale xooggan isaguna meesha gebigeedaba wakhti yar buu saaran yahay qutus maca intuu dagaalka galay maca intuu guulaystay maca wuxoo dhan sanad ma gaadho sanad waxlaa buu ku dhintay marka qutus madaxba wuxuu yahay dhowr bilood waddankiina asma iqtisaadiyana waa ka jirtaa fitan baa ka jiray mashaakil baa ka jiray tijaaradii muslimiinta guud ahaanba way istaagta waa kan tataarku bariga iyo wixii oo dhan qabsaday asma dhaqaaleed xooggan baa ka jirta see loo dagaalgelinaya marka 3 biloodna madax buu yihi khasanadii dowladdana dhaqaale kuma jiro wuxuu isugu yeedhay culammadii iyo dadkii culammada markaa wuxuu ka rabaa inuu yidhaahdo waxaan rabaa dariiba tax cusub in dadka laga qaado aan dadka ku dagaalgeliyo cashuur ha la qaada buu leeyahy zakadii iyo wixii kuma filla marka cashuur ha laga qaado dadka waxaysta si ciidanka loo hubeeyo loo dagaalgeliyo laakiin halkan waxaa joogaa nin caalim oo muftiya oo aan qalqalloo cumarin ibnu cabdisalaam la yidhaahdo ibnu cabdisalaam wuxuu yidhi haddii cadow dhulka muslimiinta ku soo duulo waxa waajib ku ah muslimiintoo dhamme inay la dagaalamaan waana bannaan tahay raciyad iyo shacabka in laga qaado wax dagaalka lagu galo oo ka badan zakawaadkii iyo wixii laakiin bisharti buu yidhi hanti weydiin maayo ilaa sharti la helo baytulmaalka khasaanadda dowladda waa inaan shilin ku hadhin buu yidhi dowladda oo lacag haysata dadka waxa laga qaado soconaysa buu yidhi khasanadda dowladda kow waa inaan shilin ku hadhin marka labaad buu yidhi nimankiinan umarada iyo madaxda ah ee nin walba dhulka iyo tuulooyinka dhan loo gooyey ee hubka iyo dahabka iyo qalabka haystaa idinna waa inaad dadka la mid noqotaan aan waxba idinku hadhin haddii madaxda dowladdu hantideeda keento khasnadda dowladda waxa ku jirana la keeno markaasaan fatwoonayaa buu leeyahy in dadkana xoolaa laga qaado iyana waa fatwo kaloo adag oo umaradii hadda lagu soo qanciyey war dagaal gala xoole waxa idinku haysateenna geeshka siiya iyada lafteedu ma fududa laakiin alciz ibnu cabdisalaam go'aankiisu waa kaa waa xaaraan buu leeyahy shacabka xoolahooda la qaato iyadoo aanay idinku aydan la simanin dee nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixi muslimka wuxuu ku tilmaamaya fawalladii biyadih laqad taaba tawba low taabahaa saaxibu maksin lagufira lah gabadhii zinaysatay ee la rajmiyey ayuu nebi moxamed wuxuu leeyay waxay toobad keentay toobad hadduu toobad keeno ka cashuurta qaada ilaahay dembigiisa uu dhaafi lahaa muxsinadda la dilay toobaddeedii waxaa laga dhigay toobad xataa loogu dembi dhaafaya maxay kan dadka xoolahooda baada ku qaada yacni xoolahoo baada lagu qaadaa kaannama ay ka weyn tahay maxay warku markuu halkaa marayo ayuu qutus wuxuu yidhi fatwada sheekha waa aqbalay anaa ugu horeeya faraska iyo seefta mooyaane wixii aan hanti leeyoo dhan waan ka dhaadhacay buu yidhi oo ka daadegay waxaan hanti wato
waxaan aqbalay in ciidamada lagu wareejiyo mar haddii dee madaxweynihii wuxuu haystay wareejinayo waxay noqotay umaradii iyo dadkii kalena inay aqbalaan waxay haystaan inuu wareejiyo alciz ibn cabdisalaamna wuxuu fatwooday dagaalku wuxuu u baahan yahay hantiya markaa in la bixiyo masarna sheekheeda waa daba socotaa markaa mushkiladdii dhaqaalahana waxay u muuqataa in la xallilay xalkeedii la helay ciidankii waa la diyaariyey waa la dhaqaaqay waxaase markaa iyana mashkilada wuxuu qaatay go'aan ah inaanu masar gudaheeda ku sugin waayo wuxuu leeyahay ciidanku hadduu masar jabo meel dambe uu isku urursan karaa ma jiro marka waa inaan ka hortagaa buu leeyahy oo dhankay joogaan ugu tagaa laakiin xaggan ay joogaan markuu tagana wuxuu soo dhaafay dowlado yaryar oo badan oo masiixiyiinah oo uu ka baqay inay ama waddankii u weydaartaan dagaal ama isagaba ay xagga dambe kaga dhuftaan intay heshiis la galaan tataarka ma alcamal idan ma iyagu ku bilaabaa kuwa kanoo waddadu bannaystaa hadduu waddada bannaysto kuwan ku bilaabana tataarkoo boqolaal kun oo askari haysta wuxuu gaadhayaa isagoo dhaawac iyo dhimashaba sita oo dagaal la soo galayoo dhib qaba iyadoo awalba laga xoog badnaa haddana ciidankiioo soo dagaalamay inuu tataar gaadhana waa dhib badantay wuxuu qaatay caqliyadda ah inuu kuwa taxyiid alacdaa yacni nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam markuu dagaallada gelayey muu odhan gaal oo dhan baa la dagaalamaya laakiin wuxuu go'aansaday inuu quraysh la dagaalamo oo iyagaa dagaalka ku bilaabay dadka inta kalena inuu heshiis la galo iyagoo gaaladooda ah yahuud saddexdii qabiilba heshiis buu nebi moxamed la galay calayhi salaatu wasalaam qabaa'il kaloo badan oo carbeed heshiis buu la galay qurayshna dagaal bay isku wadeen siyaasadda islaamiga kama mid aha nin yidhaahda gaalow cirkiiyo dhulkaba iskaga kaalay anaa kuu babacdhigaye ma aha siyaasa islaamiya nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu isku dayay inuu gaalo kala qaybiyo ayi mowqica aad daraasayso taariikhda islaamiga ka mid oo rasmiyana waxaad arkaysaa falsafaadkan inay isticmaalayeen raggii guulaha taariikhiga islaamka u soo hooyey qutus go'aan buu qaatay markaa ah iyadoo saliibiyiinta ay ishayaan iyadoo dagaalkii toddobaad ay marayaan iyagoo ay ka khatarsan yihiin tataarka waayo iyagu istaytaan bay wadeen inay dhulka degaan bay rabeen oo ay kiristaaneeyaanoo mabaadi' bay wadeen qolada tani xoolaha iyo dadkaba way dhacayeen ama waa leynayeen iyagu diin iyo mabaadi' toona may wadin de xadaaraba may wadeen inde qoladan eshiya ka timi ee tataarka ahi laakiin waxaa khatarsanaa marka kan qoladan saliibiyiinta ah wakhtiga kan laakiin wuxuu u arkayey inaanay wakhtiga kan hadduu heshiis iyo nabad helaya inuu heshiis iyo nabadda qaato qutus markaa wuxuu u diray caka ayaa ugu xoog badan imaaraadka saliibiga ah cakuu u diray waa caka xayfa sayda suur bayruut laadaqiya antakiya waxaasoo dhamme waa duwal kiristana oo meesha ku taxanayana waa duwal kristan oo xataa salaaxaddiin alayuubi uu awoodi kari waaye inuu furto wuxuu u diray markaasi rusul uu leeyahay caka waxaan idinka rabaa inaynu heshiinno akhiiran markii muddo la wada hadlay waa la heshiiyey waxay ku heshiiyeen wuxuu ku talagalay intaanay tataarka la heshiin inuu isagu la heshiiyo waxay ku heshiiyeen inay hudna wada galaan 10 sannadood inaan wax dagaali dhex marin labadooda kooxood dhulkaygii waan ka imiyey wixii ciidanku uu u baahdo ee raashinka iyo wixii la mida inaynu wax kala iibsanno dad nabadoo wax kala gadanaya noqonno abaalmarin haddaan intaa ii gashaan idinkana waxaan idiin samayn doonaa haddaan tataarka jabiyo fardaha tataarka ee khatarta ee aad taqaaniin baan wax idinka siinayaa buu yidhi oo idinka iibinaya kuwaasaanana wax idinka iibinayaa haddaa idinkuna heshiiskani la gashaan waa heshiis tabaadul ilmasaalix cakana waa meel aad u qalcado xasiina leh way aqbaleen heshiiskaasuu la galay wuxuu bilaabay markaasi inuu ciidankiisii soo dhaqaajiyo
ciidankii markii ay caddaatay inuu soo dhaqaajinayo dee kollay dad ama niyad jilicsan ama aan dagaalka jeclayn waxbaa jira askartii wax ka mid iyo waxbaa baxsaday oo markan dagaalka baxsaday qaar baa orodkii xijaas galay qaar baa yaman galay qaar baa maqrib alcarabi u cararay laakiin dadka wixii ku qancay inay dagaalamaan kuwa kani wuxuunbay ka mid ahayn kuwii ilaahay lahaa low kharajuu fiikum maa zaaduukum ilaa khabaala wala awdacuu khilaalakum yabquunakum alfitna wa fiikum samaacuuna lahum wallahu caliimun biaalimiin ciidamada wixii aqbalay iyo shacabka wixii dagaal aqbalay iyo dadkii muslimiinta o dhan baa la soo kaxeeyey falastiin sinai meel ku taalla oo saalixiya la yidhaahdo meel bannaana ayaa ciidamadii meelihii casaakirta iyo kuliyaadkii lagu tababarayay iyo wixii o dhan markii laga keenay halkaasuu isugu wada keenay marka kan waxay maraysaa waa awaa'ilu shacbaan awaa'ilu shacbaan waxaynu ognahay safar baa la qabsaday maxay baqdaad caasimat almuslimiin dimashqna rabiicul awal baa la qabsaday haddana shacbaan baa la joogaa shacbaan buu markaa wuxuu keensaday waa wakhti julay ku beegan oo kulaylo ah sinai waa kulayle wakhtiga xagaaga wakhtigaa kulaylka ah ayuu saxaarahaasi aqbalay inuu ka tallaabiyo ciidamadiisa waa ka soo tallaabeen dariiqo cusub oo marka kan aan lagu aqoonin dagaalka buu isticmaalay wuxuu isticmaalay ciidan muqadamo ah oo xooggan inuu sameeyo oo ciidamadiisa in badan ka horeeya muqadamada طaliicada yani ciidanka hor socda wax badani uma dhaxeeyo sida caadiga la yaqaano laakiin marka kan wuxuu samaystay ciidamo muqadamo ah oo xooggan ciidamada tan wuxuu u dhiibay ciidamadii masar ninkii ugu khabiirsanaa ayaa hoggaankooda loo dhiibay oo ah bebros ninkii la odhan jiray والله أعلم وبالله توفيق والسلام عليكم